taliska midowga Afrika ee AMISOM waxa ay sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay kala shaqeynayaan baaritaanka dilka gabadhii dhawaan waa gudaha xerada xalale ee lagu toogto halka rasaas ay ku haleeshay gabadhaas ugu dambeyn maanta Muqdisho lagu haasay taliska AMISOM ayaa war-saxaafadeed soo saaray oo dhinacyo badan taabanaya maalin ka hor markii magaalada Muqdisho lagu dilay gaaran xerada xalale Almas Elman oo ahayd gabar u ololeysa dhinaca nabadda horumarka diblomaasiyadda una soo shaqeysay gudaha xerada xalale lagu toogtay war-saxaafadeed ka soo baxay AMISOM waxaa lagu sheegay in nasiib darro weyn ay ahayd dilka 20kii bishan loo geystay Almas Elman waxayna AMISOM ballan qaadaysaa ayaa lagu yiri qoraalka inay kala shaqeyn doonto dawladda federaalka Soomaaliya baaritaanka kiiskan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM shalay waxa uu bilaabay baaritaano hordhac ah oo ku saabsan geerida naxdinta leh ee ku timid Marwa Almas Elman Ali Ahmed oo ay gabar dhanka diblomaasi hore ah una dhaqdhaqaaqda nabadda oo ay rasaas ku dhacday saacadu markii 8:00 duhurnimo November 20keedii 2019 gudaha xerada xalan ee magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka sidoo kale war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in xilliga xabadda ku dhaceysay Almas ay u safraysay dhanka garoonka diyaaradaha aadan cadde xilligaas ay ka dhoofi lahayd kadib markii ay uu soo ilaalay kulan xerada xalan ka dhacaya mashir halkaas ka qayb galaysay war-saxaafadeedka AMISOM waxaa lagu sheegay in Almas ay qayb ka ahayd 3 qof oo gaariga saarnaa waxaana rasaasta kaga dhacday in qaybta dambe oo gaariga iyadoo ay saarneed oo xabaddu ka haleeshay waxaana gaariga sidoo kale la saarnaa 2 qof oo kale oo midwariyo u ahaa AMISOM waxay sheegtay in markiiba ay sameysay guddi baaritaan ah oo booqday goobta isla markaana ay wadaan baaritaanka sidoo kale wax la weydiinayo darwalka ay dadkii goobjoogayaasha ah ee goobtaasi ku sugnaan waxayna sidoo kale qoraalka AMISOM ay ku sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya ay kala shaqeyn doonto baaritaanka arrintan waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in baaritaano hordhac ah ay muujinayaan in rasaasta meel fog ay ka timid taasoo muujinaysa in gudaha xerada xalan aysan ka dhicin wax toogasho ayaa lagu yiri qoraalka AMISOM waxay si wada jir ah kala shaqeyn doontaa dawladda federaalka ciidamada amniga iyo hay'adaha kale in si buuxda ay baaritaan ugu sameeyaan dhacdadaasi natiijada la wadaago dadweynaha ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka taliska booliiska Soomaaliya waxa uu shaaciyay in baaritaan uu ku sameyn doono qaabka u dhacay dilkaasi dad badan ayaa la yaabay falkan ka dhacay gudaha xerada xalale ee gabadhan u ololeysa dhanka nabadda lagu toogtay dawladda Talyaaniga